dayan dayan karaban kila doonay dadda wuxuu qaban maahir maxamed xaashi waa wiil yar oo 7 sano jir ah waxa uu ku nool yahay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maalin maalmaha kamida ayuu ku ooyay hooyadii ayaa weydiisay sababta uu la ooynayo oo ku tiray maxaa kugu dhacay maahir ayaa ugu jawaabay taabid ayaan doonayaa hooyadiisa ayaa mar kale si la yaab leh su'aashaas ugu celisay oo weydiisay waxa uu la ooynayo abdi taabid ayaan rabaa ayuuna ku jawaabay markaas ayaa hooyadii waxa ay weydiisay haddii ay u wacdo abdi taabid waxa uu markaas ku oranayo maahir ayaa ku jawaabay waxaan dhahayaa abti imow intaas kadib ayaa hooyadii dhashay maahir maxamed xaashi waxa ay baadigoob u gashay sidii ay xiriir ula samayn lahayd taabid cabdi maxamed oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqii magaalada muqdisho nasiib wanaag waxa ay heshay teelka mudanaha waxa ayna u dirtay fariin qoraareed ay ugu sheekaynayso baahida ay markaasi ku sugan tahay iyo sida ay u fulinayso ballanqaadkii wiilkeeda iyo dalabkii oo hooyadii weydiistay mudana taabid oo ilaahay hibo u siiyay naxariista iyo danqashada qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan carruurta Soomaaliyeed ayaa la ilmeeyay markii uu daawaday muuqaal kooban oo hooyadii maahir ay ka soo duubtay isla markaana ay la wadaagtay taabid ayaa markiiba waxa uu u ballan qaaday inuu fulinayo dalabka maahir yare waxa uuna ugu dambeyn u qabtay maalinta Khamiista ah ee bisha barakeysan ee Ramadaan ay kow tahay in hoygiisa ay ugu keento si uu ula kulmo markii laga baxay xilligii afurka ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho duqii hore ee caasimadda lagu keenay maahir yare oo xilligaasi ay wajigiisa ka muuqanayso farxad aad u badan ismarxabeyn iyo soo dhaweyn wanaagsan kadib waxa uu ku qaabilay qaybta soo dhaweynta martida ee hoygiisa mudana taabid cabdi ayaa waxa uu la sheekaystay maahir yare waxa uuna waalidkii ka wareystay noloshiisa iyo sidoo kale xaaladda waxbarasho ee uu xilligaasi ku sugan yahay taabid ayaa su'aalay wiilka yar waxa uu hiigsanayo mustaqbalka waxa uuna ku jawaabay maahir si lama filaan ah inuu doonayo inuu noqdo askari daacad u ah dalkiisa taasina uu jecel yahay mustaqbalka isagoo intaa kadibna guddoonsiiyey hadiyad qaali ah oo ugu talagalay mudana taabid ayaa bulshada Soomaaliyeed ay ku xusuusataa sida uu ugu damqaday carruur iyo waayeel badan oo duruufo dhanka nolosha ah ay u saamixi weysay inay iska bixiyaan daryeel caafimaad oo ay u baahnaayeen taasina uu u suurageliyay dad badan oo xanuuno kala duwan qaba kuwaas oo dalka gudihiisa wax looga qaban waayay inuu u fududeeyo daryeel caafimaad oo dalka dibadiisa